marka hore ilaahay baa subxaana watacaala mahad oo dhan iska leh. marka labaad waxa weeye waxaan marka hore mahad celinayaa dalka Imaaraadka oo marka hore nagu marti qaaday tartan sanadeedkiiba hal mar la qabto oo loogu talagalay runtii da'yar wixii ka yar 25 sano inay ku tartamaan quraanka ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisa. muddo hadda wuxuu socday 22 sano ah 22 sano muddooyinka ugu dambeeyay wuxuu tartanku saameyn jiray hadba siyaasadaha iyo kulba dhacdooyinka waddanka ka taagan ama bariga dhexe ha noqoto ama caalami dhamaantii dunida oo dhan ha noqoto kulba meesha ay wax ka taagan yihiin bay hadba doorkooda la ciyaaraan. ma cusba qadiyadani hadda waxa taagan in go'doon laga sameeyo qadar qadiyada awgeed baa waxa dhacday tartankii wuxuu bilaamay Allahumma salli ala Muhammad wuxuu bilaamay bishii maalintii isniintii dhaweed isniintii ka horeysay oo noqonaysa taqriiban Ramadaan 6deedii meelahaas buu bilaamay. tartanka waxa joogay 112 dawladood walow la kala reebay qaarkood la celiyay. kadib maalmaha kamid ah tii soo baxday bayaan ah in ma garanaysa waddanka qadar cilaaqaadka loo jaro ismaana lahayn runtii tartanka iyo saameynba ku yeelanaysa laakiin way ku yeelato waxa laga bilaabay ardaygii qadariha isagoo isla habeenkii ku qoran ayaa aan la sugin habeenimidkiinu golo afarnimadkii waddanka laga saaray. waatii Soomaaliland iyadu si gooni uga hadashay walow tartanka aanay khuseynin Soomaaliland oo meel ma garanaysa kursi aanay ku lahayn oo Soomaaliya ku leedahay kursiga Soomaaliya oo loo qaybiyay ma garanaysa goboladii Soomaaliya la isku oran jiray tartanka loo qaybiyay ayaa waxa ka soo baxay inaan anu u tartamo. kadib waxaan ku tartamay magacii ummadii Soomaaliyeed loo oran jiray. alxamdulillah siyaasaddu Usmaan Allah way soo gaaraysaa laakiin maadaama xiriir badan la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo kadibna uu wax badan diiday in uu runtii raaco qolooyinka xulafada gooniya samaystay ayaa waxay kaliftay in shalay toolo yimaado Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda qadar la soo dhaweeyo Soomaaliya ay si fiican soo dhaweyso. arrintaas qadiyadaas maadaama Soomaaliya aan loo baahnayn in ay xulafada raacdo loo baahnaa annaga saameyn ba nagu yeelatay. waxa kolleyba halka nagu ikraamay dadka Soomaaliyeed degan habeenkii tartanka galayeen aad bay iskaga soo buuxiyeen walow runtii aanan ku arkin meesha safaaradda Soomaaliya laakiin shacabkii weynaayay garanaysa ummadii sa u dhameyd amba Soomaaliland ba Hargeysa ka tagaan ama wax weey Muqdisho ka yimaado waayo qof Soomaali oo tartamaya aad bay runtii dhiirigelinayeen in ka badan 3,000 qof wax ku dhawaa yimid tartanka oo daawanayay. kadib waxay dadkaasi ballan qaadeen in garanaysa midkaayba maalin la casuumo Soomaalidu waxaan ku tartamaynay dunida waxa metelay maadaama dadkeenu waqtiyadii dagaalka ay hijroodeen oo garanaysa wadamada ay kala galeen ilaa 7 dal baan metelaynay 7 shakhsi oo Soomaaliya oo anu markaa Soomaaliya ka socdo laakiin iyagu jinsiyada kala sita sida Ethiopia, Kenya, Holland oo ama Netherlands loo yaqaan Denmark meelahaas oo dhan bay ka socdeen. marka wallahi Djibouti soo kale waxaan uga salaamayaa safiirka Djibouti oo runtii dalka Imaaraadka maalintii Jimcihii casuumad nagu qabtay magaalada Abu Dhabi isagaan ku maqnayn isagaa runtii aad nooga warhayay. soo kale ganacsadaha weyn ee degan magaalada Dubai Abubakar Muwarig oo runtii isna ganacsada Soomaaliyeed oo isna waqtigiisa oo dhan noo huray garab taagnaa intaan meesha joognay wax shakhsi oo Soomaaliya aad runtii u ixtiraam badan ahaa aad baan isagana halkan uga faa'iideystay inaan u hambaliyeeyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed. arrinka dhacay qadiyada aad ka xun oo ka tacsiideynaya manaan u jeclay runtii namana saameyn doonto dadaalkayga mar walba waan wadaynaa meel walba ka muuqan karno laakiin magaca ummadda Soomaaliyeed lama qarin karo cid walba hadda istiraado qariya. dadku waxa faafar ka siisaa qaabkii lagu yimid ma baxba lagu yiri ma sida lagu yimid bafdaq faafagsi qaabka lagu soo horto nimankan kuma oranayaan meeshu tartiibaad bay kala darajooyin bay kala haystaan. waxaan ku qornaa shalay toole magaalada maalintii hore shaariqan joognay Abu Dhabi baa ka horeysay shalay toole magaalada Cajmaan ba niman Soomaaliyeed culimo maadaama dadkeen inta halkan tageen Abu Dhabi ay masaajidada tukiyaan oo iyagoo masaajidada badankooda tukiya ayaa waxa iskugu yimid masaajid kamid ah magaalada Cajmaan halkaas aan ku lahayn afurka iyo cashada aan ku lahaa oo joogay halkaas aan tukiyay salaadii taraawixda iyo cishihii. kadib number bay soo garaacay nimankii lajnada amba tartiibintii ama nidaamintii ahaa magaranaysa tartanka
waxay ugu yidhaahdeen waxaa jirtaa inaad xafiiskii timaado magaranaysa jaa-isada maadaama waad maqantan ku sugaynaa ilaa aduu saacad waan ku sugi karanaa waayahay waan imi funduqii amba hodheelkii aan ka deganin magaalada kadib waxay ii soo bandhigeen in ay diyaaraddu buuxdo oo dadkuna ay hadda ciidii ay noqonayso dadkii wada noqonayaan sida awgeedna ay mustaxim noqon doonto diyaaraddu oon heli doono marka ana qadiyada waan ka diido waxaan ku maadaama tigirhkii uu go-naa kursigayga lama buuxin karo diyaaradda inuu tigirhkiisu u go-an yahay aduu qadiyadiisa u socoto markaa dad badan baa nala fadhiyey si gooniyaan isku raacnay waxay idhahdeen madaxweynaha waddanku lama ogola in magaranaysaay aada sii joogto marka waxay noqon doontaa inaad aduu iska socoto tigirhkaagu go-an yahayba xataa la tashi ma yaalo tigirhkaagu go-an yahay waan dhamaynay waxaagii o dhan waan dhamaynay shahaadooyinkaaga waxaaga uga dhamaynay airboortka ku yaalaan cala aqal intaad waddanka kaga bixi karto oo ah 20 daqiiq wax ku dhow gaarigiina ku taagan yahay alaabtaas soo qaado anugu khiyaarkaasaan ku dhigana waana arrin runtii naga culus annaga waanu jecleen nala joogto laakiin waa arrin naga culus oo xagga sare nagaga yimi runtii tartanka waxaa maamula la taliyaha madaxweynaha Dubai ra'iisul wasaaraha la taliyihiisa maamula tartanka madaxweynuhuna uu magaranaysa u fangaraya tartanka marka hadba siyaasadii maadaama la is haysto tartanka nin walba calankiisa hor yaala maxay Soomaaliya meesha ugu soo muuqanaysaa waxay soo dhaweyd natiijadii oo maanta tartanku dhamaanaya maanta salaada maqrib caaw 12 ku dhamaanaya tartanku kadib habeen dambe waxa la sugayaa natiijada habeenka jimcaha la sheegay natiijada waxaan ku maxaan xafladda uga qayb galay natiijadaadi waa la shaaciyay natiijadaadi waa la dhajiyay marka Allahumma salli ala Muhammad kulli uma baahnin hatta in magaranaysa madaxweynuhu ma ogola wali amriguna ma ogola in magaranaysa natiijada si wadaan marka halka waxa nooga muuqatay dadka Soomaaliyeed intii la socotayna ay arkaysay in runtii sanadkan aan rajeynayno Soomaaliya kaalinta labaad hadii magaranaysa Sacuudiyaanka oo aad loo rajeynayay ayaan isku mid noqonay waxa la sugay marka ama in Sacuudiyaanka la siiyo ama in aan la siiyo mana runtii natiijadiina leelama sugin alxamdulillah saataan kan wad imi aad baan runtii ilaahay subhanahu waxaan doonayaa magacaygu waa Xasan Maalidar waxaan ka socdaa telefishinka RTN waxaan doonayaa inaad laba arrimood dadka u cadayso marka hore foomamka laga buuxbuuxiyay intaana tartanka ka qayb galin foomamka laga buuxbuuxiyay ma magaca Soomaaliland baad ku gashay mise magaca Soomaaliya taas waa qodob markii laga joojiyay lagu soo celiyay lagu yiri madaxweynuhu ma ogola miyaanad sheegin inaad adigu ka socoto Somaliland sida aynu la wada socono waxay taageertay mowqifka Imaaraadka iyo Sacuudigu ay xiriirka ugu gooyeen dawladda Qatar marka miyaanad cabashadaada gudbin oo aanad oran anigu waxaan ka socdaa Somaliland labada arrimood bal u cadeeyay waxa weeye horta asliyan anu inaan ka soo jeedo reer Somaliland wala iska wada garanay dadkuna wada arkayeen laakiin maadaama foonka meesha wuxuu dhan lagu buuxinayo garanaysaa dawladda Soomaaliya loo oran jiray waxa weeye qadiyada meesha taalo waxa weeye Somaliland ganacsi iyo hawlay ula xiriiray Imaaraadka laakiin tacliintii wixii oo dhan waxa weeye Imaaraadkii waxa Soomaaliya nagu ogyihiin marka qadiyada ma dhiiban kartid dood ah Somaliland ma ka socdaa iyo halkan aan ka socdaa Chinese time laguma siinayba waayo dood way soo xirantay may dooneen qadiyada magaca Soomaaliyeed awalun baa lagu soo eriyay manay dooneen ma garanaysaa inaan dood la furto aan iraado ma garanaysaa Somaliland ma ka socdaa iyo halkan ka socdaa aan iraado time kan ma furnayn doodaas amarku ma la soo bixiyay waayahay marka horena foomkaad buuxisay ma magaca Soomaaliyaad ku buuxisay mise Somaliland intaana tartanka ka qayb galin tartanka ka qayb galin meesha waxa la rabaa magaca Soomaaliya la rabaa soo fahmin Somaliland kursi kamaan hel laakiin waan rajeynaa waxay wasaaradda inta u qaafto inta Imaaraadka waxa way waxyaabaha laga bedelnaa ka mid noqoto in Somaliland kursigeeda ka hesho tartanka wala kamaan helin Chinese-ka laakiin waxaan nalagu qasbay inaan la tartanno ardayda Soomaaliyeed si aan booskiga uga soo ciriirsano waanu ka soo helnay booskiga aan ku ciriirsanay وهاجك ugu dambeyn Ismaaciil oo Somaliland dhalashaan ka soo jeeda maanta Hargeysa la joogta soo noqodkaaga kadib in xukuumadda Somaliland wax xiriir ma la sameeyay waayo xukuumadda hore go'aankan way taageertay oo Imaaraadka wadamada ay taageertay bay ku jirtaa hadda maxay tahay fariinta u diraysaa ugu dambeyn horta hadda wax fariin oo canaan meesha ma taalo waxaan leeyahay shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Siilaanyo in ay runtii fadhiga ka kacaan
dareenka in magaranaysa wadan jira aynu nahay imaaraadka oo dhan laga dareemo weli lagama dareemin inaan wadan jira nahay imaaraadka laftiisa laga dareemin ma aha qiina shirkad iyo waxaan ku meeraysan waa in laga dareemo in Soomaaliland wadan jira tahay imaaraadka waxaan oran lahaa fariinta ay ku taageereen runtii waxa weeye la qumantaa iyaga madaxdeeniya in ay fadhiga ka kacaan kursiga aan maanta si xor ugu tartami lahayn Soomaaliland magaceedana la hordhigi lahaana ay noo soo qabtaan